haddaba aynu bilowno casharka koobaad ee maanta barashada luqadda afka ingiriisiga English language waxaanu ka bilaabi doonaa bilowga ugu hooseeya oo ah sida uu qofka ugu sheegi karo qofka kale sida magaca iyo waxyaalaha la xiriira oo ay ka mid yihiin ciwaanada. What is your name? Magacaagu muxuu yahay? What is your name? Magacaaga muxuu yahay? My name is Warsame. Magacaygu waa Warsame. Magacaygu waa Warsame. What's your birth date? Waa maxay taariikhdaada dhalashada? I was born on January 1st, 1981. Waxaan dhashay bishii koobaad kowdeedii 1981. Where were you born? Xageed ku dhalatay? I was born in Somalia. Waxaan ku dhashay Soomaaliya. What's your address? Waa maxay cinwaankaagu? My address is ciwaankaygu waa 445 Cedar Avenue South. Can I see your state ID? Ma arki karaa aqoonsigaaga gobolka? Yes, here it is. Haa, waa kan. What is your social security number? Waa maxay nambarkaaga social security numberka? Waa dabcan number laga isticmaalo wadamada qaarkood sida Mareykanka oo kale oo lagu ogaado qof walba oo gooniya u leeyahay number u gooni ah. My social security number is 44444444. Nambarkayga social security-gu waa 444444. What's your height? Waa maxay dhirirkaagu? My height is 5.5. Mar labaad, dhirirka waa madamada Afrika laga isticmaalo waa mitir, kan Mareykanka laga isticmaalana waa feet. Marka waxaanu ka soo qaadaynaa kan Mareykanka laga isticmaalo. My height is 5.5. Dhirirkaygu waa 5.5. What's your weight? Waa maxay miisaankaagu ama culayskaagu? My weight is 160 pound. Miisaankaygu waa 160 pound. Do you have a family? Ma leedahay caruur ama caruur ma leedahay? Yes, I do have family. Waan leeyahay xaas, wife and children. Marwo ama xaaska waan leeyahay iyo caruur. Waxaan leeyahay xaas iyo caruur. Kuwana waa erayo aynu ka baran karno casharkii maanta. Ereyga koowaad waa magac, waa name. Ereyga labaad waa address, cinwaanka. Birthday, dhalashada. Where, xagee. My, oo ah waxa my car, sida my car waxaad adigu leedahay ayaa loo isticmaalaa ereyga my. Waxaad leedahay ayaa loo isticmaalaa ereyga my. My car oo kale sida gaarigayga oo kale. My house, gurigayga. Okay, dhinaca kale haddaan u gudubno sidoo kale ereyada cusub aan ka baran karno casharkan bilowga ah waxaa ka mid ah ereyga state oo ah gobol. State of Minnesota, gobolka Minnesota. Your oo ah waxaaga. Your car ama your ID, gaarigaaga ama ID-gaaga. Warqadaada aqoonsiga aan iraahde. Weight, miisaanka ama culayska. Height, dhirirka. Family, qoyska. Children, caruur. Wife, marwo ama xaaskaaga. casharkayaga maanta inta ayuu ku idil yahay. Inta aanu casharkayaga dambe aanu ka kulmi doono waa aniga oo Axmed Cabdi ah. waxaadna ka daawanaysaan barta internetka
ee aflax online. inta aanu barnaamijka ku xiga aanu ku kulmi doono waxaan idin rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo.